la been abuuro. Dawooyinka la been abuuro isla markaana laga been sheego tayadooda ayaa ah kuwo dhibaato u geysan kara qofka bukaanka halkii lagu daweyn lahaa xanuunka. Sidoo kale, dawooyinkan ayaa lagu guulaysan waayaa in lagu daweeyo qofka bukaanka maadaama tayadooda ka hooseyso intii caadiga ahayd ee loogu talagalay. Dhanka kalena, hay'adda caafimaadka oo qaybsan Qaramada Midoobay ayaa ku qeexaysa inay tani keento kala shaki soo dhex gala qofka bukaanka daweynaya iyo bukaanka laftigiisa, taas oo dhabarjab ku ah nidaamka caafimaad ee halkaasi ka jira. Sida sheegtay hay'adda Qaramada Midoobay oo qaybsan arrimaha caafimaadka WHO, dawooyinka la been abuuro waxaa ka mid noqon kara irbadaha iyo sidoo kale kuwa lagu sameeyo baaritaanada ama shaybaadhka. Sida sheegtay hay'adda Qaramada Midoobay oo qaybsan caafimaadka, dawooyinka laga been abuuro waxa u badan dawooyinka lagula tacaalo ama lagu daweeyo malaariyada ama duumada iyo sidoo kale dawooyinka loo yaqaan antibiyootiga. Hay'adda Qaramada Midoobay oo qaybsan caafimaadka waxay sheegaysaa dawooyinka laga been abuuro tayadooda ay ka mid yihiin dawooyinka lagu daweeyo cudurka kansarka loo yaqaano oo inta badan marka laga hadlayo ay ku baxo qarash aad u fara badan maadaama yihiin dawooyin